madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada Mareykanka wuxuuna noqday madaxweynihii ugu da'da weynaa ee xafiiskaasi fadhiista. waxyaabo aad ku ogaan Joe Biden ayaa kugu soo gudbin doona warbixintani. Joseph Robinette Biden Jr. wuxuu dhashay 20kii bishii November sanadkii 1942 haatan waa 78 jir. wuxuu ku soo garay gobolka Pennsylvania wuxuuna ka dhashay qoys Kristaan ah. asagoo ku jiro da'da 10 sano ayay qoyskiis u soo guureen gobolka Delaware waana goobtan meesha uu siyaasadda ka soo galay Mr. Biden. jaamacad ku taalo gobolkaasi ayuu ka baxay wuxuuna bartay culuumta sharciga. sanadkii 1972 Joe Biden waxaa soo wajahay wax aan la maleyn karin. xaaskiisii hore ee Nella iyo gabar yar oo hal sano jireed oo u dhalay ayaa ku dhinteen shil baabuur oo aan weli qaadin. laba wiil oo dhalay ayaa shilkaasi ku dhaawacmay. labadaas wiil ayaa ka soo kabseen dhaawacyadaasi. mid ka mid ah wiilashiisa ayaa raacay wadada aabihiis wuxuuna ku soo biiray siyaasadda Mareykanka. wuxuu noqday xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Delaware balse sanadkii 2015 ayuu xidigaasi soo kacay u geeriyooday kansarka madaxa ku dhaca asagoo ku jiray da'da 46. Joe Biden wuxuu soo noqday madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka maamulkii Barack Obama sanadkii 2009. mid ka mid ah wiilasha uu dhalay Joe Biden ayaa ka ganacsan jiray drugska. sanadkii 2014 ayaa la qabtay kadib markii jirkiisa laga helay daroogada cocaine-ka. Joe Biden waxaa lagu tilmaamaa inuu ku jiro dabaqada dhexe asaga oo haysta adduun lacageed $15 milyan. waxaa 6 jeer loo doortay aqalka sare ee Mareykanka. wuxuu ka mid ahaa guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan aqalkaasi. Abriil sanadkii 2019 ayuu ku dhawaaqay inuu yahay musharaxa la tartami doono Donald Trump. maantana wuxuu ku guuleystay madaxweynaha Mareykanka. Joe Biden waa 78 jir dhashay sanadkii 1942 waana madaxweynihii ugu da'da weynaa ee Mareykanka yeesho. wuxuu ku faanaa inuu leeyahay khibrad ah inuu 6 jeer ka mid noqday guddiga aqalka sare ee Mareykanka. 2 jeerna uu soo noqday madaxweyne ku-xigeenkii Mareykanka. Joe Biden waxyaabaha uu ballan qaaday intii ololaha ku jiray waxaa ka mid ahaa inuu wax ka qaban doono dhaqaale xumada haatan ku habsatay Amerika, waddanka ugu dhaqaalaha badan dunida, iyo siduu u maareyn doono caabuqa coronavirus. wuxuu ka faa'iideystay kala qaybsanaanta ka jirta Amerika waqti xaadirkani.